كسرات عاوي عالمك قضبة وركن ووينا وحا أي كليهين dadka reer Falastiin ayaa ka horyimi qorshaha bariga dhexe ee Donald Trump waxa ay ku tilmaameen in qorshahaasi ay shirqool ay Mareykanka iyo Israa'iil wada maleegayaan warbixin dheeraad ah iyo falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah waxaa sii kordhaya tirada dalalka muwaadiniintooda ka soo daadgureynaya magaalada Wuhan ee Shiinaha halkaas oo ah meesha xanuunka coronavirus uu ka dilaacay khilaafka ka taagan galmudug ayaa waji cusub maanta yeeshay kadib markii ururka ahlus sunna wal jamaa ay ku dhawaaqeen in madaxweynuhu doorteen Sheekh Maxamed Shaakir iyadoo dhinaca kalena ay socoto dhageysiga khudbadaha musharaxiinta galmudug waa baaskiil badda lala galay waxaanu eegi doonaa wadista baaskiilada oo heer kale u talowday kala soo BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraw idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe dadka Falastiin ayaa aad uga carooday qorshaha cusub ee nabadeynta bariga dhexe ee ay shalay madaxweyne Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku dhawaaqeen madaxweynaha Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiska qarniga balse madaxweynaha Falastiiniyiinta waa Maxamuud Cabbaas ayaanan ka qayb galin geedi socodka isagoo waliba si cad uga soo horjeestay qorshahan muddada 30 sano ah aan iraahdee muddo 30 sano gaaraysa waxaa jiray wada hadallo ku aadanaa hanaanka nabadeynta bariga dhexe oo ka bilowday wada hadallo qarsoodi ah oo Falastiin iyo Israa'iil ku dhexmaray dalka Norway haddii aanu eegno wada hadalladaasi waxa ay horseedeen heshiis taariikhi ah oo loogu magac daray heshiiskii Oslo waxaana lagu saxiixay aqalka cad sanadkii 1993 heshiiska ururka xoreynta heshiiskan ayaa ururka xoreynta Falastiin uu hogaaminayay Yaasir Carafaad oo aqoonsaday inuu yahay ururka matalaya dadka reer Falastiin iyadoo uu Carafaad isna aqoonsaday xaqa jiritaanka Israa'iil mustaqbalkuna inuu ahaado lagu heshiiyay mid laga wada hadli karo halkii uu noqon lahaa mid lagu dagaalamo balse su'aalaha adag badankood sida mustaqbalka magaalada Qudus iyo wixii laga qaban lahaa qaxootiga reer Falastiin ayaa dib loo dhigay ka hadalkooda si marka hore loo dhiso kalsooni iyo is-aamin haddaba shirkaas ama heshiiskaasi waxaa ka dambeeyay sanado badan oo rabshado tirabeel ah iyo is-eedeyn labada dhinacba ay isu jeedinayeen kuwaas oo sababay in la sii kala fogaado iyadoo talaabadan ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Mareykanka ay garwadeynka ka yihiin lagu tilmaamayo heshiis nabadeed haddana dad badani waxa ay aaminsan yihiin in hanaankii heshiiskii Oslo ka soo bilaabmay oo iminka dhab ahaan u burburay qolka dhanka bariya aqalka cad ee Mareykanka waxa uu u muuqday mid ay xaflad ka jirtay madaxweyne Trump iyo Benjamin Netanyahu ayaa isku hambalyeeyay dadkii kale ayaa iyaguna sacab iyo sawaxan ugu daray As everyone knows, I have done a lot for Israel. sida la wada og yahay waxyaabo badan ayaan u qabtay Israa'iil aniga oo raray safaaradda Mareykanka Qudus recognizing the Golan Heights aqoonsadayna buuraha Golan Heights and frankly perhaps iyo toogu muhiimsan oo ah inaan ka baxay heshiiskii xumaa ee nuclear-ka ee Iran haddana waxay manaya dokumentiyo sugaya in lagu istaambeeyo guusha Israa'iil ee ka gaartay khilaaf ku dhawaad qarni soo socday heshiiskan ayaa waxa ku qoran isla fikradaha uu aadka u aaminsan yahay Mr. Netanyahu oo ku aadan amniga Israa'iil iyo xaqa dhulka ay ugu leeyihiin kaasoo dunida badankeedu ay u aragto inuu yahay dhul ay Falastiin leedahay balse la haysto far too long the very heart of the waqti aad u dheer dhulkeena Israa'iil oo ay awowayaasheenu ku takun jireen nabiyadeennuna dadka diinta ugu yeeri jireen boqoradeennuna xukumayeen waa waxa laga caroodo in looga hadlo sida dhul sharci darro lagu haysto maantana madaxweyne beentaas weyn ayaa duleelisay xalay Falastiiniyiinta Gaza way dibad baxayeen
inkastoo hore dhexdooda khilaafyo uga jireen tallaabadan madaxweyne Trump ayaa u muuqata inay midaynayso. Falastiiniyiinta ayaa markii horeba ku haystay maamulka madaxweyne Trump taageerada buuxdo oo ay siiyaan Israa'iil. madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaan iman xafladan waliba hore ugu gacan sayray heshiiskan. waxaan Trump iyo Netanyahu ku leeyahay qudus iib maaha, xuquuqdeennuna iib maaha, mana laga gorgortamayo. waxay ku murmayaan dhul ay Israa'iil qabsatay 67dii dagaalkii bariga dhexe. sida jiilkan caalamka ku noolna ay u arkayeen waxay ahayd nabadi inaysan suuragal ahayn iyadoon la samayn maamul Falastiin leedahay oo ay caasimadiisuna ahaataa magaalada Qudus. maanta dhulkaasi waxaa lagu kala googooyay derbiyo, siligyo iyo baro control. qorshaha Trump wuxuu dariishada ka tuurayaa heshiisyadii hore si loo helo wax uun dowlad ah oo Falastiiniyiintu leeyihiin. waa haddii ay aqbalaan shuruudaha ay ogolaatay Israa'iil. dhanka kale Israa'iil ayaa waxay u muuqataa in la siiyay fursad ay ku sii ballaaran karto iyadoo loo ogolaaday inay isku sii fidin karto meelaha ay doonayso. waqtiga qorshahan la soo bandhigaya ayaa u muuqda mid ay madaxdu aad uga fiirsadeen oo ay dadweynaha uga mashquulinayaan arrimaha kale sida dembiyada culus iyo kuwa yaryar ee madaxweyne Trump lagu eedeynayo iyadoo Benjamin Netanyahuna lagu haysto dembiye ay ku jiraan laaluush iyo musuqmaasuq. wagaag haddaba go'aankan muranka dhaliyay ee madaxweyne Trump ku dhawaaqay muxuu ku soo kordhin doonaa xaaladda bariga dhexe oo awalba liidatay. waxaa stuudiyaha ila jooga Xasan Cabdi Xaylo oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe. Xasan, soo dhawow. waa maxay qodobada la isku mari la'yahay oo la isku khilaafsan yahay oo heshiiskan ku jira? horta reer Falastiin waxay leeyihiin heshiiska oo dhan wuxuu yahay heshiis aan ka imaan asalkiisa فكرك الدولة الأمريكية أما مدحوينها الدولة الأمريكية وقرش وقت دير يسوي دي إسرائيل ما أنت وحن مقلي إنك معناها إنك وين ذاك معناها أهلها فلسطين معناها كدولة أما أدوية مثلا معناها أنت قضية فلسطين أدوية وتقانو إنه يعني إنك علص كدولة سابع رقم كذي هذا وحوري هشيس كان نقل الذي سبحان أركي لبكون يكوي طبنكي asaga oo dhan oo bil xarf macnaha eray ahaan iyo letter ahaan marka arrimaha ugu weyn waxa kamid ah Quduska bari ama Qudus dhinaceeda bari waa Israa'iil waxay qabsatay dagaalkii 6 maalmood loo yaqaan 1967 ay qabsatay marka Quduska reer Falastiin kaliya wax ay leeyihiin ma aha waxaa loo arkaa meel muhiim u ah dunida islaamka oo dhan marka mushkilada horta ugu weyn waa arrinta Qudus haddii Qudus aysan u ahayn dowladda Falastiin ee dhalan doonta oo waliba aan dhalan caasimad aysan u noqon oo adduunkana uusan u ictiraafin madaxda misan reer galbeedkana aysan sidaas macnaha heshiiskii Oslo aysan saas u qaadan oo Qudus oo ogsoonahay dhul ay Israa'iil qabsatay inuu yahay sharciyeynta marka Mareykanka uu u sharciyeynayo inuu caasimad ay u tahay Israa'iil ama dowlad Israa'iil ah waa tan horta tan ugu weyn waxa kale oo dhibaatada jirta misan heshiisyadaas waxaan la isku mari la'yahay dadka intaan taas uga dibin iga hal noqo Trump wuxuu leeyahay heshiiskan waa heshiis u wanaagsan Falastiin oo Qudusta barina waxay u noqon doontaa caasimad dowladda maana lagu qancin karin waxa heshiiskaas ku jira maanta Qudusta bari Qudus ma heshiis kala qaybin maayo Qudus oo dhan uu leeyahay Qudusta bari فلسطين هذه أكتر قدس تبري إن دولة فلسطين أو نقول دون تصدق ويفعلنا لكن دونالد ترامب وحكوا قبلنا لبكون معناها تضبيط وانكي وحو اعتراف إن قدس تهم مجال إسرائيل سفارة دي سي تل أبيب وصور روحوا كان قدس أرنتوت وين أو قدس أن ما هو فلسطين كلية أما قدس وحكوا قبلنا تاريخ دير إلى هاي ودقالوا وين صار الأحمر المسلمين كان رجال بيت مركز هذا الكاس ترامب ليها ما هن مد أي هوبنتي أو هاي ستاندرد كارير فلسطين وديدين horta taas ugu weyn tan kale oo dhibka badan waxay tahay dad qaxootiyaha maqan oo Falastiiniyiin ilaa 5 milyan loo qiyaasayo 2 milyan wax ku dhow ayaa waxay ku nool yihiin wadamada misan Falastiin dariska la ah sida Lebanon, Suuriya, Iraq qayb ka tirsan Urdun dadkaas oo dhan in ay xaq u leeyihiin inay dib u soo noqdaan Israa'iil marna aqbalin taas dhibaatada kale way tahay hatta dawladda Falastiin sida arrimihii ka soo baxay Oslo waxay horta dawlad aan waxba ahayn oo misan xukun hoose haysata ma dawlad si fiican madax banaan ma aha xukun hoose haysta oo ismaamule hub iyo ciidamada ma laha gobolka markii aad eegto in Falastiiniyiintu ay ka hor yimaadaan heshiiskan Israa'iilna ay dhinac ka riixayso xaaladda gobolka halkay geyn kartaa maxaa ka dhalan kara arrintan wala horta arrintan Falastiin iyo Qudus gaar ahaan
waxaan ka warqabnaa 30 sano ee ka badan ilaa markii dowladda Israa'iil mesela la aasaasay oo 1940 la sameeyay 42 la sameeyay waxay 48 dhibaato soo socotay ahayd dagaalo badan ay sameeyday waxaan ogsoonahay arinta salka waxay ku haydaa khilaafaad taariikheed oo diiniya oo ummadaha u dhaxeeya macnaha dadka gaar ahaan muslimiinta dhinaca iyo yuhuudda waxaan ka warqabnaa in dagaalo badan ay muslimiinta iyo wadamada reer galbeedka ay ka soo dhaxeeyay marka arinta qudus arin dhibaato badan way إيران ku jirta Turkiya ku jira lama saadaalin karo laakiin haddii مثلا عقلي أو جرو يعرفت وحلاقي يابا إن waxyaabaas dhan laga gudbo xasan cabdi xeele aad iyo aad u mahadsantahay bal markana haddii aan oogno qodobada kale ee ku jira wararka caawa heshiis u dhaxeeya Masar, Ethiopia iyo Suudaan oo ku saabsan biyo-xireenka webiga Nile ayaa la rajaynayaa inuu goordhow qalinka loogu duugo magaalada Washington. Ethiopia ayaa lagu soo warramayaa inay ogolaatay inay biyo-xireenka ay kaliya buuxin doonto marka lagu jiro xilli roobaadiyada oo aanay hal jeer wada buuxin doonin. Masar ayaa 90% ku tiirsan biyaha webiga Nile. ciidamada Suuriya ayaa sheegaya in ay dib ula wareegeen magaalo istiraatiiji ah oo ku taala Idlib gobolkii ugu dambeeyay ee mucaaradku ku xooganaa dagaal culus ayaa halkaas ka dhacay markii ay ciidamada madaxweyne Asad ee Ruushku taageero ay galeen Marad al-Nu'man waxa ay ku taala wadada istiraatiiji ah oo isku xirta labada magaalo ee ugu waaweyn Syria, Dimashq iyo Aleppo. marwab waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somalilkaas oo ka heli doonta muuqaal iyo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn sidoo kale nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socdo aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan baaskiil badda la galay qadar yar nasashaha dabadeed wali waxaad daawaneysaan caawiya caalamka waa aniga maxamed cabdi xaraare baraadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn dadka reer Falastiin ayaa ka hor yimid qorshaha bariga dhexe ee Donald Trump waxa ay ku tilmaameen qorshe inuu yahay shirqool ay Mareykanka iyo Israa'iil wada maleegayaan waxaa sii kordhaya tirada dalalka muwaadiniintooda ka soo daadgureynaya magaalada Wuhan ee Shiinaha halkaas oo ah meesha xanuunka coronavirus uu ka dilaacay وهاجاك خلافك كتاجن معمول سماينتا قلمدك أيا وجه عصب مانتا يشي كدي مركي أورك أهل السنة والجماعة أي شيئين إني مدحوينها قلمدك دورتين شيخ محمد شاكر يضو لنا عكلنا مانتا لدقي سنة خطبتها مشرحين تاجن مدحوينها يا مدحوين كحجانك وريها BBC ده بلا شيء أيا وربحنتن إنه قصادرت مقدشة جورنويت guddiga doorashooyinka maamulsada ee galmudug iyo xildhibaanada ayaa maanta dhageystay khudbada musharaxiinta waxayna sheegeen in muddo 3 maalmood ah dib loogu dhigay doorashooyinka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dhanka kale ahlus sunna wal jamaa ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku doortay madaxweyne waxayna qabsadeen doorashooyin gacan taag ah waxaana ku guuleystay Sheekh Maxamed Shaakir musharaxiinta banaanka ka istaagay doorashooyinka isbabar socda ee galmudug ayaa iyaguna sheegay in ay ka soo horjeedaan doorashooyinkan iska soo horjeeda ee galmudug ka socda dhanka kale magaalada Gaalkacyo madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Xaaf ayaa isaguna qaban qaabinaya doorasho kale
beesha caalamka ayaa iyaduna qoraal ay dhawaan soo saartay waxay ku sheegtay in la joojiyo isbarbaryaaca lana dhiso maamul goboleed loo wada dhan yahay tan iyo markii la aasaasay maamul goboleedka galmudug waxaa jiray khilaafe iyo isqabqabsi dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaana sheegtay in iyadu ay ku jirto dadaalo ay doonayso inay ku dhisto dowlad loo mideysan yahay maamul goboleedka galmudug وهاجاج waxaa sii kordhaya liiska dalalka qorsheynaya inay muwaadiniintooda ka soo saaraan magaalada Wuhan ee wadanka Shiinaha taas oo iminka xudun u noqotay fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi waxa ilaa iyo hadda laga soo dadgureeyay dad u dhashay dalalka Mareykanka iyo Japan iyada oo tirada dadka laga helay cudurka ay ku sii dhowdahay 6,000 oo qof waxaana u dhintay ilaa iyo hadda 131 qof shirkadaha diyaaradaha British Airways iyo Indonesia Lion Air ayaa ku dhawaaqay in ay joojiyeen dhammaan duulimaadadii dalka Shiinaha waxaa jira hadaba Soomaali arday u badan oo ku go'doonsan magaalada Wuhan waxaa kamid ah Yaasiin Cabdi oo hadda si toos ah khadka Skype uga jira magaaladaasi Yaasiin soo dhawow magaalada ganacsigeedu waa uu xiran yahay go'doon ayay ku jirtaa sida wararku nagu soo gaarayaan xaaladda guud ee magaalada iyo xaaladiina gaar ahaaneed bal inooga waran والله حالة جودة مجالده حرنايد إلى صلاح الله تكي بيش تجينوري إلى أي مكان هو حرنت هاي حالة جودة مجالده واسدي هراء وحوي تعالوا حلت عالي يعني بيش انتهي عضو كان سوريتي وحوي إن ما أنت تجينيس وحي شيء دم استرن إسبتال كي أي قنديين إنه قاعده بيش انتهي عصب كون يلا بقول قف أي قنديين إسبتال كاس قاعده xaaladeedu gudna wallahi way degan tahay mana jiro qof Soomaali ah oo ilaahay ma kala sheegay inuu cudurku ku dhacay waana nabad qabnaa waa gartay waa arrin wanaagsan arrintaasi laakiin waxa la sheegayaa in muwaadiniinta qaar ay dalalkooda qaadayaan adinka wax idin la soo xiriiray oo safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala Shiinaha ama wax dawladda ka socdo idin ka warhaya si hoose wallahi Soomaalida horta meesha ay ku jooga waa ilaa ku tameeyo qof oo kala dhigta jaamacado kala duwan iyo meelo kala duwan jooga waxaanay u badan yihiin Soomaali kala duwan oo waxa weeye wadamo kala duwan ka timi haddii aan ku sheego Soomaalida ka timi wadanka Soomaaliya aanan ka mid ahay waxaan la xiriirnay safaaradda dawladda Soomaaliya ku leedahay magaalada Beijing iyo Ministry of Foreign Affairs ka Soomaaliya liiskayagana waan u gudbinay xaaladayna iyaga nala socodsiinaya kolba wixii soo cusbaanada iyo iskuulada ay ardaydu joogaan iyo authority-ga Chinese-ka ee magaalada jooga waa gartay Yaasiino cabsidiina idinku daran ee hadda qabtaan waa maxay wallahi horta cabsideeda gaar ahaaneed aan qabno qofka taawada wuxuu ka warwarayaa sidii qofka kasto oo adduunka jooga inuu cudurkan soo gaaro cabsideeda gaar ahaaneed aniga ay haysana waxa weeye maadaama aan ahay qof dhakhtar ah waxaan aad uga cabsi qabaa inuu cudurkan gaaro wadankeygii hooyo maadaama uu wadanka Soomaaliya ama guud ahaan deegaanada Soomaalida ay xiriir fiican ama xiriir aad u dhow la leeyihiin wadanka Shiinaha waxa weeye taasa cabsida jirta ay tahay Yaasiin Cabdi aad iyo aad u mahadsan tahay waa arday Wuhan degan isla markaa wax ka barta qayb kamida waqtigiisana wuxuu ka shaqeeyaa isbitaal Wuhan ku yaal iyadoo ay Britain midowga Yurub ka baxayso jimcaha soo socota ayay guddiga dawladda Ingiriiska kala talaya arrimaha socdaalku soo jeediyeen in dawladdu ay yareyso shuruudaha mushaharaadka ee lagu xiro dadka soo galootiga si loo helo macallimiin iyo howlwadeeno caafimaad Cabdiraxmaan Biran Xaaji Daahir ayaa faahfaahinaya waa doonyaha ilaalada xeebaha ee dalkan Britain oo difaac kaga jira xadka Ingiriiska ee magaalada Dover guddida kala talisa dawladdan Ingiriiska arrimaha socdaalka ayaa waxay sheegeen in dawladdu ay u baahan tahay inay doorato bal cidda dalkan imanaysa marka midowga Yurub laga baxo isbeddel kasta oo ku yimaada cidda loo ogol yahay in ay UK timaado iyo cidda aanan loo ogolayn inay UK timaado waxa ay noqon doontaa mid ay qaybaha qaarkood ka faa'iidaystaan halka qaar kalena aanay ka faa'iidaysan doonin waa ay adag tahay in cid walba la raali geliyo waax ka mid ah daba dhaqaalaha ayaa waxay tahay waaxda iyadu daryeelka dadka waaweyn iyo dadka xanuunsanaya waxaana ay sheegeen in haddii aan halkaasi loo helin dad iyagu soo galootiyo ka shaqeeya ay noqonayso in shaqaaluhu ka yaraadaan daryeelka iyo waxa keerka loo yaqaano waxaanay guddidu ku talinaysaa waxa ay ila tahay in xaqiiqda aanu ku soo dhowaano dadka daryeelka ka shaqeeya waxay naga mudan yihiin
yihiin mushaar ka badan inta ay iminka qaataan waxaana filayaa in arrintaasi qorshaheedu lama huraan guddida ka talisa arrimahan haddaba soo galootiga ayaa waxay iyagu soo jeediyeen hoos loo dhigo mushaharka shuruudda looga dhigo dadku marka halkan imanayaan oo iminka ah bay yidhaahdeen $9,000,000 oo dollar isla markaasina laga dhigo $33,300 oo dollar intaasi ay keenayso in macallimiin iyo howlwadeennada caafimaadku ajaanibaba si fudud lagu helo guddiga MAC wuxoodu waa talo marka jawaab ayaanu ka bixinaynaa dhowaan waxaa kaloo muhiima in la ogaado in dadka Britishka ahi ay si cad ugu codeeyeen isbeddel dhanka socdaalka ah tusaale ahaan magaalada New York shaqaalaha ka yimid wadamada midowga Yurub ayaa waxay yihiin lafdhabarta ka shaqaysa qaybta dalxiiska ee magaalada taasi oo sanadkii ay magaalada ka soo gasho lacag lagu qiyaasay $650 milyan oo dollar su'aashu waxa weeye magaaladani sidee bay uga jawaabi doontaa xaaladahan cusub waxaana muuqata in haddii la yareeyo soo galootiga iyaduna ay leedahay xanuunkeeda وهاجاك بليمكن هدي أنو إجنو ورك عيارها عاوة هريالك إنجليزكا ويست هام أو لحر بينيسا إن هريالك أنا كبحين أي قابليس كوحدة هريالك هو جامينيسا وليفربول كوحدة ليفربول أيانا إلا إيا هدا لقبضين حل عيارات كان معمولها ويست هام ديفيد مويسنا وحا الشيء إن أي هول أدكتهاي إن كوحداسي أي كراعان بلساني ددال ريبان دونين مانشستر يونايتد ayaa qaabilaysa Manchester City ciyaar ka tirsan koobka EFL-ka City ayaa ku hogaaminaysa 3-1 lugtii hore ee ay soo ciyaareen labadan kooxood dhinaca kalena Aston Villa ayaa xaqiijistay finalka koobkaasi kadib markii ay xalay 2-1 ku garaacday Leicester City lugtii labaad waxa ayna ku soo baxday 3-2 ciyaaryahanka Trezeguet ayaa guusha u horseeday Villa guriga agaasimaha fulinta ee kooxda Manchester United Ed Woodward ayaa la weeraray muuqaal la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qof walax holcaysa ku tuuraya ganjeelka guriga halka kuwa kale dad kale ay heeso iyo hadallo kale ku dhawaaqayeen booliska ayaa baaritaan wada iyadoo Manchester United-na ay sheegtay in qof kasta oo ku kaca fal dambi ay ka mamnuuci doonto garoonkeeda وهاجاك هدي أتسوقيسي إن قف مالين أون هندسو باسكيل بيها كصعدة إمن كهملة لجار شركة فدقيدو هاي نيوزيلاند أو لغو مجعابو مانتا 5 ayaa ugu dambeyn soo saartay baaskiil koronto iyo saliid ku shaqeynaya wuxuu kamid yahay kumanaanka qalabka tiknoolajiyada ah iyo hal abuuro lagu soo bandhigayo shirka tiknoolajiyada Las Vegas wariyaha BBC-da ee barnaamijka League Spencer Kelly ayaa u kurgalay in ay fududahay in baaskiilkan lagu socdo iyo in kale Mawlid Xaaji Cabdi ayaa soo jeedinaya halkani waa harada Las Vegas laag ku taal lama degaanka tani waa Stacy kanina waa baaskiilka Hydrovoiler XE1 waa baaskiil koronto ku shaqeeya kaasi oo biyaha lagu dulwadi karo marka aad badeelayso matoorka korontada ayaa dhaqaajinaya marwaxadda taasi oo hore ku wadaysa kadibna cuf hoos kaga dhegan ayaa u shaqeeya sida garbaha diyaaradda korna uga qaadaya biyaha wuxuu la mid yahay nidaamkii aad ku arki lahayd doonyaha tartanka haddaba sidee bay u adag tahay in la wado ilaa iyo inta aad badeelayso bilowga waxay kugu filan tahay inta uu kor u kaco kadibna aad ku mushaaxdo laakiin dhibku waa halka oo ilaa aad la qabsanayso sidan ayuu xaalku ahaanaya weliba sidan iyo sidan tabtu dhab ahaantii waa haddii aad dareento in baaskiilka uu dheyliyey aad dhanka kale waxoogaa isku tiiriso soona celiso baaskiilkani wuxuu socon karaa ilaa 13 mayl saacaddii qiimaha baaskiilkani wuxuu ku dhow yahay $7,500 marka haddii ay noqoto inaad iibsato mid waxaad u baahan tahay biyo yaro diiran dushooda inaad ku samayso tijaabo kuna celceliso tijaabadaasi
ugu dambeyntiina caawa waxaan idinkaga tegayaa labadan xayawaan ee bandaha ee mataanaha ee bannaanka u soo baxay labadan bandah oo lagu kala tegay inta ayaan kusoo afmeynaya barnaamijka caawiya caalamka nabadgelyo